kan waxa ay wasaaradda maaliyadda Soomaaliya soo bandhigtay naqshada ay yeelan karto lacag cusub oo loo soo daabacayo waddanka Soomaaliya waxaan horay mas'uuliyiintu ay u sheegeen in loo baahan yahay lacag dhan 41 milyan oo dollarka Mareykanka oo lacagtaasi lagu soo daabaco haddaba mid ka mid ah mas'uuliyiinta arrimaha maaliyadda ee baarlamaanka federaalka ayaa ka digay in xilligan lacago loo soo daabaco dalka Cabdullaahi Maxamed Nuur waa wasiir dawlihii hore ee maaliyadda Soomaaliya haatan xoghayaha maaliyadda ee guddiga maaliyadda ee baarlamaanka Soomaaliya Haruun Macruuf ayuu uga warramay sida uu u arko lacagaha la sheegay in la soo daabacayo waa maantooda waxaan hore marka xigta waa sax dadka Soomaaliya ama guud ahaan dawladda Soomaaliya oo u baahan tahay inay lacag soo daabacdo ama ay lahaato lacag gaar ah waa arrin muhiim ah laakiin walaal waxaa jira arrimo muhiim ah ama shuruudo fara badan oo ku xiran in lacag dawladda Soomaaliya ay soo daabacdo waxaa jira wadahadallo ama wada xaajood soo bilowday xilli hore oo magaranaysa madaxweynihii hore dawladdii ka horeysay dawladdan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo la yeeshay ama uu soo bilaabay sanadkii 2013 bishii Febraayo xilligaas oo kulan kula yeeshay dalka Mareykanka madaxda ugu sarreysa hay'adda IMF iyo World Bank-ga wasiiradii soo maray maaliyadaha dalka laga soo bilaabo wasiir Suleymaan Xalane Fargeeti iyo wadanka labadaba aan la soo shaqeeyay wasiir dawladda oo ahaa iyo wasiirka jooga waqtigan ayay ka qabteen ama dadaal fara badan ayay ku bixiyeen balse walaal shuruudihii ilaa in lama dhamaystirin haddii ay dhacdo shuruudahaas aan dhamaystirnayn in lagu dhiirido in lacag la soo daabacane waxay keenaysaa in cawaaqib xumo aad ugu ballaaran oo dhaqaale iyo mid siyaasadeed intaba wasiirka maaliyaddu uu ka hadlay qaabka iyo dariiqa loo marayo lacagaha la soo daabacayo iyo maamulka lacagahaba wuxuu sheegay inay shuruudo adag ku xidhan sida aad sheegtay hay'adda lacagta adduunka IMF saddex tijaabo la dhigay laba la soo dhamaystiray mid ay hadda socoto taas haddii ay ku guuleystaana ay ka dhigan tahay Soomaaliya inay imtixaankii baastay arrintaas su'aal ma ka taagan horta midda koowaad waxay tahay marka laga hadlayo arrimaha lacag daabacidda mas-uuliyaddeeda ma lahan wasiirka maaliyadda si dad badan ay aaminsan yihiin mas-uuliyadda lacag daabacadeed waxaa iskale oo kaliya bankiga dhexe Soomaaliya dowladda waxaan u yeernay guddi ahaan guddiga maaliyadda golaha shacabka waxaan u yeernay bankiga dhexe ee Soomaaliya waxay inoo sheegay warbixin badan ay naga siiyeen muddo aan ka yarayn 5 saacadood su'aal ka weydiinayna arrimaha la xiriira lacagaha la xusay in la soo daabacayo ama ay ka fikiraan inay soo daabacaan guddi waxay naga muuqday caqabado aad u fara badan ama challenges aad u fara badan inay hor yaalaan laakiin aad moodo in waxyaabaha qaarkood in si la fiiraan bakirayo maxaa ka mid ah walaal waxaad dad xasuusato waxaa jirta hadda ka hor dawladdii madaxweyne Sheekh Shariif oo ka ahaa madaxweynaha in ay soo daabacday lacagta qiimaha lagu soo daabacay wuxuu leeyahay kala bar lacagta hadda la doonayo magaranaysa qiimaha hadda la doonayo in lagu soo daabaco lacagta sida aan la socono lacagaha waxay ku qaadaan ama ay ka buuxdaan weli maqaarkiisa la dadku waxaana sababaha kalifay in lacagta dalka la keeni waayo weli way taagan yihiin wax badan oo kamid ama boqolkiiba 80 weli way taagan yihiin dawladda Suudaan marnaba waxay ka codsatay dawladda Soomaaliya inay lacagaha ka daabusho maadaama lagu dalbay lagu daabaco dalka dawladda Soomaaliya balse laga soo bilaabo madaxweyne Sheekh Shariif madaxweyne xasan sheekh maxamuud si ay ku dhisan waayeen marka ay la dasteen khubaro dhaqaale cilladaha faraha badan ee hor yaalla ay ka soo qaadan waayeen ama ay ugu dhiiran waayeen waxa ku ka in inflationka iyo ama sicir bararka lacagaha imaan kara inaan dawladda Soomaaliya aynan aad u kontrooli karin dawladda Soomaaliya iminka ma hayso mana awood inay soo daabacdo lacagta 40 milyan ma hayo Central Bank of Somalia sida uu noo sheegay sidaas la mid ah lacagta kolka la soo daabaco waxa u baahan aragti ah oo kaleeyihiin damaarto meelo badan oo dalka kamid ah kama shaqeyn doonto lacagahaasi sida Somaliland iyo meelaha ay aad u xukumaan qolahan madadiidka ah oo dawladda gacanteeda ku siinay al-shabaab waxaan la soconnaa qolahan magaranaysa al-shabaab inay saameyn xoog leh ku yeelan karaan ayagoo iminka canshuuro ka qaada magaalada Muqdisho dawladda Soomaaliya ay cashuurta ka qaado meel kastoo kamid ah marka walaal danka amniga marka la yiraahdo saameyn xoog leh yeelan karta oo in ganacsatada sidaas oo kale xambaad lagu sameeyo marka danka amnigana waa caqabadaha ka jira dadka siyaasadda waxa ka jira
xaaladaha arrimaha dowladda iyo arrinta Soomaaliland oo weli aan waxba laga qaban. marka lacagta hadda ku jirta suuqa shil Soomaaliga waad aragtay way dhamaatay ama waxay ku dhowdahay inay dhamaato meelo badan lama isticmaalo shaqaalaha xataa mushaar laguma siiyo dollar baa la siiya muxuu noqonayaa xalku marka xalku wuxuu noqonayaa lacagaha u badan weliba been abuurka dalka ku jira balse maalintii hadda way baadiyooday kolkaad aragto lacagtu waxaad moodaa in boqolkiiba 70 ay baaba'day oo boqolkiiba bakaraysa yar ka nooshahay lacagaha qiimaha ku dhagan ay Soomaaliya laakiin kolka la bilaabo lacagta in la bedelo dib ayaa loo soo makiinadii loo istaari doonaa waana la soo daabici doonaa lacagii wax policy ama dhanka amniga ama dhanka siyaasadda hal rasmi oo laga gaaray ama magaraysa makiinadii lama soo xareyn oo magaaladii ku jira marka waxay noqonaysaa bangiga dhexe uu shaqeeyo makiinadaha waxay daawacdaa inay ka bedelaan xalka guud marka muxuu yahay xalka guud waxaa kooka horta dowladdu inay hubiso ama ay xaqiijiso in lacagtii lagu soo daabici lahaa iyo lacagtii lagu haysta control lahaa oo dollarka ahayd oo reserve ahaan loo isticmaali lahaa dowladda Soomaaliya inay awoodo waxaa kaloo muhiim ah in la helo deganaansho siyaasadeed sida magaranaysa lacagtan in dowladda Soomaaliya kolka lasoo daawaco la kala kariyay guud ahaan dalka Soomaaliya in laga isticmaalo sida Somaliland iyo dowlad goboleedyada oo xisaab garab cad laga leeyahay waxaa kaloo muhiim ah arrinta amniga in laga sameeyo horumar ballaaran sida magaranaysa qolaha nabadgelyada ee al-shabaab oo kale laga xoreeyo waxaa kaloo muhiim ah in la helo daahfurnaan maaliyadeed arrimahan musuqmaasuqan xal loo helo waxaa kaloo muhiim ah in dhismaha iyo horumarinta bangiga dhexe aad looga shaqeeyo marka la eego bangiga dhexe ee Soomaaliya systemka uu ku shaqeeyo ilaa iminka waxaad moodaa in dukaamada yaryar ee ku yaala suuqyada xitaa inayan ku shaqeyn wuxuu ku shaqeeyaa Central Bank of Somalia Phase 3 wax la helo core banking system malahan aad u dhisay marka Central Bank of Somalia sida uu eeg lacagta inta la eeg iyo mas'uuliyadda inta la eeg ilaa Central Bank wax weyn laga bedelay oo dalka Soomaaliya gobolada Soomaaliya la gaarsiinay way aragtay inuu lacagta amaam waxaa kaloo muhiim ah diyaarinta iyo fulinta shuruucda maaliyadeed ee dalka sida sharciga maamulka maaliyadda ama loo yaqaan PFM-ka kan hanti dhowraha kan canshuuraha iyo sharciga iibka iyo qandaraasyada marka inahaasoo idil oo maqani waxayna ka mid tahay